Kusoo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeennii ciyaara halka kala socota waa Awolo Official Channel. Qodobada ugu muhiimsan wararkeennana waxaa ka mid Virgil van Dijk oo runta sheegay rajada Liverpool ee Premier League ay ka qabtay inay sii yaraanayso. Kooxda Newcastle United oo ciyaaryahan qarka u saaray inay dhamaystirto heshiiskiisa waa kuma. Manchester United oo la soo wareegisay ciyaartay Ingiriiska aad loo qiimeeyo waa kuma kaas. Kulanka caawa dhex mari doona kooxaha Wolves iyo Man United oo wax badan ka hayo. Barnaamijkan oo faahfaahsan daawasho wacan saaxiibya. Manchester United ayaa raadinaysa guushii labaad oo xidhiidha marka caawa garoonkeeda Old Trafford ku qaabisho Wolves, taasoo ka caawin doonta inay kaalinta lixaad kala baxaan Tottenham isla markaana ku dhowaadaan Arsenal oo hal dhibic ay ka dambeyn doonaan. Tababare Ralf Rangnick ayaa noqonaysa ciyaartiisii lixaad ee Premier League uu hogaamiyo Man United. Shantii kulan ee hore 3 kulan ayuu guuleystay, 2 barbaro ayuu galay. Man United ayaa guuleysatay dhammaan 3 ciyaarood ee ugu dambeeyay la kulmaan Wolves, waana markii labaad guuli ugu badnaa isku xiga ay ka helaan intii u dhaxaysay 1964 ilaa 1968 ay United hore u garaacday Wolves 5 ciyaarood oo isku xiga. Wolves wax guul ah kama yaanay helin 10 kulan ee ugu dambeeyay Man United la kulmaan. 7 waa laga badiyay, 3 barbaro ayay la galeen. Old Trafford guul ka gaadhaan Man United waxaa ugu dambeysay February sanadkii 1980 markay yimaadeen garoonka Old Trafford. Wolves aad ay ugu dhibantay sanada intaa leeg ayaa ugu dambeysay inay guul ku gaadhaan. 7 ka mid ah kulamadaas wax gool ah kamay dhalin. Isugeyn 10 ciyaarood ee la ciyaartay Man United 3 gool oo kaliya ayaa ay ka dhaliyeen kooxda Wolves ee ka dhalisay Man United. Man United waxay leedahay rikoor sare oo dhinaca guulaha marka la gaadho bilaha January marka la barbar dhigo naadiyada kale ee England. 65% kulamada ciyaartay way guuleysataa. 113 ciyaarood oo Man United dhashay bisha January waxay guul gaadhay 74 jeer, waana in ka badan koox kasta oo Premier League ka ciyaarta. Haddii aynu intaa kaga nimaadno warbixinta kulankaas, aynu eegno kabtanka Manchester United oo hadalhayn badan ka taagantahay waxyaabaha laga yidhi ayaynu wax ka odhan doonaa. Harry Maguire weli wuu ku dhibaatoonayaa inuu noqdo hogaamiyaha saxda ah. Man United waxay ku faa'iidi la'dahay kabtanka cusub, iyadoo Cristiano Ronaldo uu yahay xiddiga ugu habboon ee hogaamin kara qolka labiska Old Trafford. 36 jirkan ayaa xiddiga ugu fiican kooxda haddii ay doorato inuu hogaamiye u noqdo. Xiddigaha kalena waxay soo raacayaan haddii Rangnick uu qaato go'aanka geesinimada leh. Ronaldo uu ka dhigo kabtanka cusub isla markaana uu ka xayoobiyo Harry Maguire kabtanimada. Waxa uu hubaalay inuu isbedel heli lahaa jawiga qolka labiska. Ronaldo ayaa xiddig nacab guuldarrada. Haddii uu noqdo hogaamiyaha kooxda, ciyaartoyda kalena waxay heli lahaayeen kabtan ay ku daydaan oo ay dhinaca guusha iyo wadada toosan ku haga. Waxaa gaadhay halkii aanu ku guuldaraysanay. Virgil van Dijk oo runta ka sheegay rajada Liverpool ee Premier League. Daafaca Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa qirtay in horyaalka Premier League xilli ciyaareedka uu gacanta u galay Manchester City oo ay adag tahay si looga qabto kadib markii ay kooxdiisu barbaro 2-2 la gashay Chelsea. Axaddii intaas kadib ayuu ka hadlay rajada kooxdiisa ee horyaalka, isagoo si cad u soo qaaday Manchester City oo yidhi marna way adkaanaysaa in la rumaysto runta, sababtoo ah farqi dhibco badan ayaa inaga horeeyaan kooxda Man City, isla markaana way naga rajo fiican yihiin ku guuleysiga horyaalka Premier League. Laakiin wax badan ayaa dhici kara. Hore ayaanu halkaa u joognay, farqi intaa leegna waanu ka sareynay, dhibco badan ayaanu isku laminay. Mar walba
waxa way dhici kara isbedela. Waa Virgil van Dijk oo ka hadlayay kadib ciyaartii kulankii ay la ciyaarayeen Chelsea oo kadib saxaafadda la hadlay ayaa hadallada noocaas sheegay. Haddii aynu eegno dhinaca suuqa kala iibsiga iyo wararka ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga, kooxda Newcastle United ayaa qarka u saaray inay dhamaystirto heshiiska Trippier. Waa daafaca garabka midig ee kooxda Atletico Madrid iyo xulka qaranka England, waxaana harsan kaliya waraaqihii heshiiska in la dhammaystiro isla markaana la isku afkarto qiimaha. Sidoo kalena kulankii shalay Atletico Madrid ay guusha ka raacday u ciyaarayay Trippier ayaa loo arkay isagoo taageerayaasha macasalaameynaya oo u gacan haadinaya, waana waxyaabaha saxaafaddu sheegaysa inuu heshiiskan iska dhan yahay kadib kol dhacdadaas uu sameeyey shalay toole. Trippier ayaa noqon doona ciyaartoygii ugu horeeyay ee kooxda Newcastle United ay la wareegeen intii ay la wareegtay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga. United ayaa suuqa bisha January taageer ka dhiganaysa xiddiga xulka qaranka England ee Declan Rice. Rice ayaa isagoo laftirkiisa doonaya koox ka ciyaarta Champions League isla markaana doonaya inuu isaga tago kooxda West Ham si uu u qaado tayada kubadiisa. Xiddigan ayaa lagu qiimeynayaa 100 milyan oo pound. Haddii ay Man United miiska saarto waa ay helaysaa, sida wargeysyada ugu afka dheer dalka Ingiriiska ay qorayaan. Haddii Man United qiimaha 100 milyan ay bixiso, Man United way heli kartaa laacibkan. Barnaamijkeeni ciyaaruhu intaas ayuu ka eegay. Asxaabta nagu cusub fadlan subscribe saara, asxaabta hore loo jeegto like iyo share ku dara, siina faafiya barnaamijkeenan. Mahadsanidin.